soo dhawaada daawadayaal qodobada xiisaha leh caawa aad halkan ku daawan doontaan kuwooda ugu door korona waxa ugu waaweyn ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa ayaa la qorsheynayay in maalinta Britole uu safar ku gaaro magaalada Hargeysa balse laakiin ugu dambeyn ka baaqday haddaba maxaa keenay sababta rasmiga uga baaqday ugaaska inuu safar ku tagay Hargeysa haddii uu Hargeysa tago maxay ahayd ujeedka uu u tagayay maxay ka wada hadlayaan isaga iyo Cabdiraxmaan Ciro safarkan baaqday oo xogtiisa la ogaaday sidoo kale qodobada xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah Malaysia ka tirsan beesha Samaroon oo caawa weerar gaadma ah ay ku qaadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada geesiyaasha beesha ciise haddaba sidee ayay wax u dhaceen yaa wax ku naqday yaa qasaaro xoogan lagu gaarsiiyay dagaalkaasi wan ku hayaa faahfaahintaasi intii lagu gudjiray afurkii ayay weerar gaadma ay qaadeen beesha ama maleeshiyaadka beesha Samaroon iyagoona ay weerareen ciise iyagoona jawaabtooda la siiyay haddaba waxaan kula wadaagi doonaa xaaladda guud ee halkaasi dagaalka saacado ka hor ay halkaasi ku wada dagaalameen Malaysia ka tirsan beesha Samaroon iyo waliba sidoo kale beesha ciise sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Iran ayaana markaasi duqeyn ka geysan karta Somaliland sababtuna waxa ay tahay in Israel ay taageero weyn ay u muujinayso maamulka Somaliland qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan saaxiibayaal halkan kugula wadaagi doonaa ilaa dhamaadka muuqaalkan dhamayso daawade halkan aad naga daawanaysaan waa Macaash Media haddii ay taa markuu ugu horeysay fadlan YouTube-ka subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna like garay sii share garay oo saaxiibadaada la wadaag mahasani daawade soo dhawaada hagaag aynu ku bilaawno haddii aan fiiriyo qodobadeena kuwana ugu door korona caawa aan halkan idinkugu soo gudbiyayna iyagoo faahfaahsan ayaan markan saaxiibayaal u gudagalaya aan ku bilaabay ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa ayaa gebi ahaanba safarkii uu ku tagi lahaa magaalada Hargeysa maalinta Bria u baaqday sababta ugu weyn waxa ay tahay in beesha ciise ay diidayba in gebi ahaanba ugaaska loo diro gudaha magaalada Hargeysa iyadoo laga yaabo in xaaladdu ay isbedesho oo ay noqoto in maartay maxbuus uu noqdo ugaaskii dhamaa ee beesha ciise hal doorada beesha beesha ciise iyo dhalinyaradoodii iyo cuqaashoodii iyo odayaashoodii waxay maartay kula taliyeen in ugaaska gebi ahaanba safarkan uu baajiyo xaalad markaasi amni ay jirto awgeed maadaama dagaalkii u dhaxeeyay beesha Samaroon iyo beesha ciise wali ma uusan dhamaan oo waxa uu markaasi maraya meelihiisii ugu xumaa uguna xasaasisana maxaa yeelay beesha Samaroon maalin walba waxa ay rabtaa in ay dagaal ay ku qaado beesha ciise halka beesha ciisena ay iyana doonayaan in dhankooda ay weerar ku qaadaan beesha Samaroon balse laakiin xaaladdu ma ahan mid markaasi bariga dhexe ah ama meel isugu yimaado way qasan tahay oo qof kale walba waxa ay doonaysaa inay iyadu meesha kaga adkaato maamulka Somaliland ayaa loo xaqliya in beesha Samaroon uu gacan weyn u siiyo ama hadii ay naqan lahayd hubka ama ciidan ayuu inta badan la sheegaa inuu ku saacido balse laakiin beesha ciise waxa ay sheegeen inaysan waxaasi qoreynin oo wixii ay la yimaadaan beesha Samaroon ay cashar u dhigayaan aan fiirino marka wararka laga helay gobolka Awdal iyo Salel ayaa sheegaya in ugaaska beesha ciise uu markaasi baajiyay safarka uu maalinta Bria oo ku tagi lahaa magaalada Hargeysa taas oo markaasi uu la qaadan lahaa madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo halkaasi isagu uu sheegay in uu maartay uu ku balamiyay ama azuumad u fidiyay balse laakiin ugaaska beesha ciise ayaa gebi ahaanba safarkii uu maalinta Bria oo ku tagi lahaa Hargeysa uu kansalay sababta ugu weyn ayaana la sheegay in ay tahay xaalad amni oo kacsan xilli ay xiisada ay ka dhex alowsan tahay beelaha deegaanka waxaana sidoo kale la sheegayaa in ay odayaasha iyo waxgaradka beesha ciise ay kula taliyeen in ugaaska beesha uu maartay dib u dhigo kulankan ama safarkan uu hadda ku doonayo inuu ku tago magaalada Hargeysa taas oo ay la macno tahay in ugaaska beeshiisa uu wax ka maqlo waxna uu ka dhageysto taas ayaana keentay in gebi ahaanba ugaaska uu kansalo safarkii uu ku soo gaari lahaa magaalada Hargeysa oo waa u baaqday ugaaska maalinta Bria safarkii uu socday waa uu ka baaqsan doonaa oo reerkiisa iyo dadkiisa ayuu ku dhex jiri doonaa
ugaas Mustaf ayaa la filayay in maalintii beriyo uu Hargeysa gaaro sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro kulan uu la qaato inkastoo tuhun kale uu halkaasi jiro oo xaalad amni ay jirto oo laga cabsi qabay in la kaco madaxweynaha maartay ugaaskii dhamaa ee Beesha Ciise balse laakiin Beesha Ciise ayaa gabi ahaan badiiday in ugaaska uu kaligiisa loo diro Hargeysa waliba waqti xaadirkan haddii ay noqonayso xitaa waa mar kale markii dhexdhexaad iyo waliba sidoo kale damaanad ay noqoto ayuu maartay ay doorbidayaan inay halkaasi ay tagaan qodobada kale ee xiisaha leh hadii aan fiiriyano waxa markaasi ah Malaysia ka tirsan Beesha Samaroon ayaa caawa weerar gaadma ah intii afurku lagu fadhiyayna ay ku qaadeen geesiyaasha Beesha Ciise balse laakiin geesiyaashu aad u foojiganna waxa ay kala hortageen rasaas nool maadaama Soomaalida hore u tiri qofkii rasaas ugu soo furo in rasaas lagu furo ay tahay ama qofkii wixii ku kasbado uu ka kasbado ayaadna maartay aad ku awaal marinaysaa haddii aan fiiriyana wararkaasi oo nuxurkiisa wararka ka imaanaya waa maartay xuduudka Boorama iyo waliba sidoo kale Saylac ayaa sheegaya in Malaysia ka tirsan Beesha Samaroon ay caawa afurkii ay weerar gaadma ay ku qaadeen deegaan markaasi ay degan yihiin dadka Beesha Ciise kuwaas oo halkaasi ku wada fiidsanayay kuna afurayay maadaama bil barakaysan oo Ramadaan lagu gudo jiro waliba 10kii dhexe ayaana lagu gudo jiraa Beesha Samaroon ayaana weerar gaadma ay ku qaadeen xilligii la afuri lahaa ayay weerar soo qaadeen talow ma afursane ma soomneen miya intii umada afurka u fadhisay oo Ilaahay dartiisa afkooda u xirnaa iyagoo meel fadhiyo ayay isku day inay gaadaan balse laakiin 10 loo dhigay oo iyagii ayaa lagu kala baxay waxa la sheegayaa in rasaas xoogan la isku markaasi weedaarsanayay wali lama xaqiijin khasaaraha balse laakiin waxa la tuunsan yahay in Beesha Samaroon ay khasaare halkaasi ka gaartay xiisada ay ka taagan gobolka Awdal ayaana si maartay kordhaysa iyadoona xaaladahan jira awgeed aysan suurtagal ahayn in wada hadal iyo heshiisba halkaasi uu ka dhasho waa tan keentay in ugaaska Beesha Ciise uu maalintii beriyo u socday inuu gaaro Hargeysa tani ayaa kalifaysa in ugaaska uu maartay uu ka baaqsado maadaama aysan meesha siis jirin oo ay Somaliland ay soo dhadhoobayso heshiis beenaada taas oo ay rabto in Beesha Ciise lagu dhibirjiyo laakiin Beesha Ciise waa ay ka foojigan tahay beelaha gudubursiisa Samaroonba dadka deegaanka ayaana cabsi ka qaba in dagaalkan uu sii daba dheeraado oo xaaladaha halisana ay halkaasi ku qabsato maadaama bil Ramadaan lagu gudo jiro sidoo kale ay jiraan wadanka abaaro bahsan oo wadanka dadka deegaanka iyo dunyadaba ay ku dhufatay xilli ay dadka reer miyigu ay aad maartay ula tacaalayaan xaaladooda haddii aan fiirino qodobkeena ugu dambeeyana waxa lagu leeyahay dawladda Iran ayaa weerar markaa ku fulin karta gudaha magaalada Hargeysa kadib markii ay maamulka Somaliland ay dabadhilif ay u noqdeen Yahuuda Israel shacab iyo madaxba waxay media la hortaagan yihiin inay taageerayaan oo maartay maamulka Israel oo ah maamul aan la aqoonsaneyn balse laakiin Iran markan maartay waxa ay ballan qaaday haddii ay Israel ama Somaliland ay sii wado taageerada Israel ay ka dhabeyn doonto oo ay hub maartay waliba sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ay ku oban doonaan gudaha caasimadda Hargeysa aan fiirino marka arrimaha gobolka waa maartay gobolka ayaa sii kululaanaya kadib markii Israel ay aqoonsatay maamulka goonigosadka ee Somaliland taasoo dhalisay caro ka timaaday dalal badan oo ay ku jiraan Iran waxa ay sheegtay in tallaabadaasi ay tahay xuquuqda ka dhan ah midnimada ummadda Soomaaliyeed kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa sidoo kale digniin adag u jeedisay taasoo ay tahay inay ka joogto isla markaasna ay Somaliland ay maartay u nacamleyso maamulka Yahuuda Israel Xuutiyiinta Yemen waxay ballan qaadeen haddii ay iyaguna ay ka fiirsan waayaan in ay iyagu intaan Iran la gaarin ay iyagu bilaabi doonaan si kastaba ma jirto war rasmi ah oo xogahan cadeyn kara in Somaliland ay maartay dhawaan la fulin karo balse laakiin waxa jirto xaalado degdeg ah oo la filin karayo in maalmaha soo aadan isbedelo Xuutiyiinta Yemen in ay weerar halkaasi ka geystaan balse daawada waan arki doonaa wax walba soo kordhana halkan ayaadna maartay idinkula wadaagi doonaa waxaadna naqan doontiin kuwa ugu horeeyay maqli doono xogaha aan halkan kusoo gudbiyo daawada haddii aad halkan nala soo gaarto xataa qof walba wanaagsan waxaan sana arsla kaaga codsanayaa inaad page-kayso waa YouTube-kayso subscribe garis muuqaalka la galay siin share galay saaxiibada la wadaag ku maasin daawasho muuqaalka maasinidin